Wir begrüßen sehr Ihr Interesse an unserer Arbeit und unserer Kultur und sind neugierig auf einen regen Austausch. ururkanaga maanta wuxuu halkan isugu yimid inuu wax ka ogaado sida ay bulshada Soomaaliyeed ee wadankan degan uga qayb qaadan lahayd xagga waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada maadaama xisbiyo kala duwan wadankan hadba xisbiga talada uu la wareego SPDna ay u taagan tahay in sanadkan hadda 22 September doorashada soo socoto inuu ku guuleysto ay u dhowdahay waxaan xiiseynaynaa sidii bulshada Soomaaliyeed ee halkan hadda codkiina diisiyaan ay uga qayb qaadan lahaayeen yani dhismaha waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada shaqooyinka iyo wixii aad ka qaban lahaydeen xagga sharciyada maadaama bulsho badan oo Soomaaliyeed ay waanta wadanka soo galayaan waxa hadalka qaatay isaguna sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga SPD ee xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkani haatan hore uga soo taliyay muddo badan intii aanu xisbiga CDU ee Angela Merkel hogaamisa talada dalkani uu la wareegin waxaana hadaladiisii isaguna uu ku bilaabay sida tan aniga waxaan ahay qof micnaha yani aabihiis uu qof shaqaale ahaannimo ku yimid Jarmalka sidaas la hadligeena anigoo sidaas ah oo aabahay uu wadankan shaqo u yimid ayaa waxa ii suurta gashay inaan waxbarashada dugsi sare halkan ku dhameeyo ka bacdina aan jaamacad galo halkaasna aan shaqo fiican ku helo waxaanuba caruurtiina inay micnaha sidaas oo kale ayadana ay sameyn karaan oo ay la mid yihiin caruurta kale caruurtiina waxaanuba inay caruur intelligent ay yihiin markuu qofku wax barto ayuuna yani jaamacad uu ka baxo ayuu dadkan bulshada dhex gali karaa marka waa inaad ku dadaashaan in caruurtiinu xagga waxbarashada ay iskuul fiican iyo xirfad fiican ku sida la socotaan waxa mar walba muhiim ah inaad idinku doorashada aad ka qayb gashaan oo doorashada gashaan mustaqbalkiina cid go'aanka ka gaaraysa waa idinka mustaqbalkiina go'aanka gaaristiisa waxa iska la idinka waxaan idinkula talinayaa inaad gashaan xisbiyada oo ku biirtaan si talada idinku u goysaan oo aan idinka talada la idinku goynin waxa muhiimadu ay tahay in xisbiyada ay ku jiraan dad idinka idin matala oo go'aamadiina iyo fikirkiina matala isla markaana idinku soo doorataan gaar ahaan dhalinyarada yaryar ee wadankan ku dhashay haddii ay ku biiraan xisbiyada waxa ay matali karaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo codkooda ay ku soo bixeen tusaale waalidiintiin halkan markay yimaadeen waxay ku yimaadeen qaab shaqo ama qaxoontinimo laakiin idinku tii waa ka duwan tihiin oo ma idin haysato dhibaato dhankii luuqadda ah waxaana idin fudud inaad fahamtaan siyaasadda waddankani haddii aad tihiin dhalinyarada isla markaa haddii aad xisbiyada ku biirtaan oo aad fikradaha gooyintooda iyo talooyinka aad idinku qayb ka tihiin dan maaha in cid kale ay mustaqbalkiina iyo aayihiina go'aanka gaadhay cidda xaqa u leh go'aanka gaadhista arrimihiinu waa idinka waxaan idin odhan lahaa ku soo biira siyaasadda gaar ahaan xisbiga SPD oo soo gala ka dhex codeeya una codeeya حتى هداد قشان حسبية كلا يدل كان كتيرة وواحد يدين فايدة ويدين مورني أنو SPD كسو بيرو أو كليه وحن يدل ليه ورجلا أو كقيب قاتا أو كود دالة سيدي يدينكو عد كينا وقصوا بحي لهيدين أما أوصو صار لهيدين عيد إدين بتشة intaasi kadibna waxa hadalka iyadu soo gashay wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda dalkani Jarmalka Mrs Brigitte Severis oo iyadu ka tirsan xisbiga SPD isla markaana kamid ah baarlamaanka heer federaal ee laga soo doorto magaalada Darmstadt ee dalkani Jarmalka Staatsangehörigkeit muss sich aber zwischen 18 und 23 Jahren entscheiden ob es annaga iyo xisbiga kale ee CDU-da waxaan ku kala duwanahay barasaymi tusaale ahaan dhalashada xisbiga CDU-da wuxuu qabaa in qofku uu markuu gaaro 18 ilaa 22 sano uu hal dhalasho wadanka qaado oo uu haysto ama markaas inuu kala doorto inuu Turkish ahaado ama Soomaalish ama inuu Jarmal ahaado laakiin micnaha annaga xisbi ahaan SPD-da waxaan ku kala duwanahay waxaan qabnaa qofku inuu labada dhalashada uu wada haysan karayo hadda haddaan idin fiiriyo sida gabdhihiina meesha fadhiyo dharka aad qabtaan waxa iga muuqdo in wadnihiina meeshii aad ka timaadeen sida aad u labisan jirteen aad u labisataan
maadaama aad sidaas oo kale aad tihiin oo dharkiini iyo sida u noolaan jirteen aad jeceshiin maxaa diidaya inuu qofku laba dhalasho u haysto. Da sagt Herr Siebel dann gleich noch was zu. Ich würde dann erstmal einen Punkt machen. dhanka kalena Michael Siebel oo kamid ah baarlamaanka gobolka Hessen ayaa isaguna hadalkiisi waxa uu ku bilaabay auch zusammengeführt werden. Ich will nicht sagen, dass das ein Modell ist, was in vielen anderen Ländern auch gut wäre, aber ich kann nur sagen, es ist ein Modell, was ich für uns xisbiga SPD macnaha waxa jira hab model ama federal systemka aan ku dhaqmayno gobolka naga macnaha wuxuu xaq u leeyahay inuu asaga matalo xagga waxbarashada annaga xisbiga naga SPD ahaan waxa wadnaha naga ah in qof kasta oo wadankan degan ama gobolkan degan uu waxbarashada qayb weyn ka ku lahaado oo waxbarashadiisa heer ka gaaro waxbarashada uu qofku heer ka gaarana waxay ku xiran tahay wixii ka dambeeyo noloshiisa oo dhan xagga shaqada wuxuu qaban lahaa annaga waxaan rabnaa SPD ahaan haddaan ku guuleysano doorashadan hadda dhacayso September inaan lacag badan gelino xagga waxbarashada si markaas iskuulaadka macallimiin badan oo ardada waxbarto kindergartenada meesha caruurta lagu hayo dad badan oo ka shaqeeyo oo caruurta waxbaro ay halkaasi uu suurtoodo qof kasta oo wadankan degan inuu waxbarashada heer fiican ka gaaro si uu aakhirka dambe noloshiisa meel fiican u gaaro annaga xisbi ahaan waxaan rabnaa inaan adkayno dadka caawinaya dadkaas oo kale tusaale ahaan dadku waxa laga yaabaa inaysan aqoon sida iskuulka Jarmalka uu shaqeeyo anigaba waxaan ahay aabo 3 caruur ah mararka qaarkoodna ma fahmo kolka ay imtixaan leeyihiin iyo waxa imtixaanka laga rabo waa inuu jira dadka u sheego ama ka caawiyo sida uu Jarmalka iskuulkiisa u shaqeeyo waxa kale oo muhiim ah hadda maanta inaan idin sheegaan rabaa in hadda dawladda Jarmalka ay xeer soo saartay xeerkaas oo ah in la aqoonsado shahaadada uu qofku dibadda wadankiisa uu ku soo qaatay ama xirfad uu wadankiisa ku soo bartay tusaale ahaan hadduu qof jaamacad ama xirfad uu wadanka Soomaaliya ku soo dhameeyay in halkan lafteeda war xirfadaasi loo qiimeeyo oo loo aqoonsado taasi waxay suurtagelinaysaa inuu qofku xirfadaas uu bartay uu ku shaqeeyo oo ay la mid noqoto xirfadii halkan uu qof halkan u dhashay uu ku shaqeynay oo la baranay ist der eine und wie ist der andere, wie funktioniert es in einem Land und wie funktioniert es im anderen Land. qofka hadduu dugsi sare kusoo dhameeyay Soomaaliya oo halkaan soo yimaado oo shahaado dugsi sare haysto wadankan wuxuu xaq ugu leeyahay Ich bin Vorsitzende des Somalischen Kultur- und Integrationsverein. waxaan rabaa inaan afkeyga ku hadlo Soomaali markaan 2004 aan baasaboorka qaadanay Deutsche Pass markii aan qaadanaynay iyo hadda same maahan markii aan qaadanaynay maxay ahayd waxaan akhrineynay journaalkaas wuxuu yahay aan soo koobaynay micnaha uu journaalkaas uu ka hadlayo paragraph yar laakiin hadda B1 ayaa lagu xiray dadka maxay ahayd B1 mooda shaafeyn karaan inta shaafeyn karta waa iska yartahay siiba markaan ka hadla haweenka Soomaaliyeed barabaraamkooda ayaa iska badan ilmaha meeshaan ku hayaan ayagoo kaligood ilmihii waa ogtihiin dhibkooda wuu badan yahay markii haddana ay gaaraan maxay ahayd ay gaaraan aqsanyaar iyo darays iyo sexanyaar markay gaaraan barabaraamkooda wuu sii badanaa markay yaraayeen ayay korinayeen haweenka Soomaaliyeed ma shaafeyn karaan B1 marka waxaan ka codsanaynaa xisbigan cusub hadduu talada qabto SPD waxaan ka codsanaynaa inay nacaawiyaan Soomaali ahaan ama Islaandarka dhibka aan qabnaa ayaga way qabaan haddii aan waxaan kala rabaa inaan ka hadlo gabadhan diina waa dariskayga Alina alqa Xisaam waxay qabtaa 3 caruur ilmay qabtaa ilmaheeda meeshaan ku dhasheen kan ugu yar wuxuu jiraa 9 sano kan ugu weyn wuxuu jiraa aqsan yaare ilmahaas ma haystaan Deutsche Pass ma haystaan intayna ku dhasheen problemku ugu weyn waxa waa iyada 3 jeer ayay B1 isku dayda inay hesho ayadoo fara naakiliyeed oo shaqeynaysa wayna weysay 3 jeer isku dayday 3 B1 way shaafeen weysay marka SPD waxaan ka codsanaynaa in arrimahaas problemka Soomaalida haysto ay naga caawiyaan SPD amaanta wadiinaya ama xisbiga waddanka u taliya oo studio-ga ah
سؤال محا صبت تهي إن المها كرش ودن كار مركز إرشاد لها قحوتي أسلاندر كسوقر ودمر كان إسلام مركز الأرشاد الوصية حسب ده حسب دي ملقبان سيدو بس بقول قد كوضح على المهاس dad badan oo ajnabi ah oo wadanka yimid waxay rabaan inay wax bartaan inay information helaan inay hore u socdaan inay nolosha meel fiican ka gaaraan rabitaankaas qofka annagana waxaan rabnaa inaan dadkaasi ka caawino inay waxa ay rabaan ay helaan inay hore u maraan inay noloshooda dhistaan inay waxbarashada meel fiican ka gaaraan taasi ay u suurto gasho waxa jirta dad yacni wadankan muddo badan wax ku bartay ama degana dadkaasi waxay suurto geliyaan in ay dadkii ay ka yimaadeen u sheegaan sida uu Jarmalka u shaqeeyo. Muss ich aufstehen? Okay. Also ich hätte eine Frage bezüglich der Migrationsassistenten, wie das jetzt genau aussehen soll, ob sie in den Schulen eingesetzt werden sollen, ob sie mal einen mudane waxa hadalkaagii kamid ahaa inaad sheegtay in haddii aad SPD tihiin aad samayn doontaan shaqo abuur ay kamid tahay asul assistant waxa aad ugu yeedheen marka haddiiba taasi dhacdo shaqadaas halkee laga qabanaya ma xafiisyada dowladda ma isbitaalada iskuulada halkeebaad idinku es muss Migrationsassistentinnen und Assistenten geben für, wie ich schon sagte, für Behördengänge. Und es muss natürlich auch Migrationsassistenten in Schulen. annagu ujeedadana waxa weeye inaan abuurno shaqadaas oo aan ugu magac darnay shul social arbeit ama migration assistant shaqadaasi waa inay jiraan dadka ka caawiyo xafiisyada sida xafiisyada shaqada xafiisyada socialka xafiisyada caafimaadka xafiisyada immigration sidoo kale dad waa inay jiraan ka caawiyo ama ka shaqeeyo iskuulaadka dadkaasi waxay kala jinsiyad yihiin ardada jinsiyadaha kale ee iskuulka dhiganaya waxayna ka caawinayaan oo ay la af yihiin caruurtaas problemyada. Der Bundestag hat ungefähr 600 Abgeordnete. 300 Abgeordnete werden in den Wahlkreisen direkt gewählt. Und 300 Abgeordnete kommen über die sogenannte Landesliste. Also über die Parteien, über die aniga macna Birgitta Cyprus laba jeer ayaan waxaan ahaa qof toos loo soo doortay baarlamaanka Jarmalka waxa uu ka kooban yahay 600 cod 300 oo cod waxa waxay ku yimaadaan qofka doorashada koobaad 300 codna waxay ku soo galaan xagga xisbiga aniga waxaan ahaa 250,000 oo qof ayaa Darmstadt iyo agaarkeeda sida Griesheim oo kale iga soo dooratay sidaas ayaan laba jeer waxaan ku soo galay baarlamaanka haddana markii saddexaad ayaan waxaan u sharaxanahay inaan ku soo galo aanu direct maantaan qof walba oo Jarmal wuxuu xaq u leeyahay laba cod codka koobaad waxa uu siiyaa qofka uu jecel yahay codka labaadna waxa uu siiyaa xisbiga uu jecel yahay haddii aad codka koobaad aniga isiisaan sidaas ayaan ku soo galayaa direct maantaan oo aan xisbiga hore oo 300 hore ka mid noqonaya haddii aad codka labaad xisbiga aad siisaanna wuxuu ku soo galayaa qofkaas xisbiga uu ka tirsan yahay sidaas oo kale hadda Frogvagna Darmstadt xisbigeeda uga soo gashay. Gibt es bei uns 20 Jahre gibt es Bürgerkrieg und gibt es hier eine zum Beispiel Frauen mit Kindern und die Bundesländer in Deutschland so die haben entschieden, ob das die Kinder bekommt ja so eine anerkannt und die Mutter nicht. arrintaas waa arrin aan dhicin oo aan caadi ahayn qofka qaxootiga weydiisanaya ama qaxootiga loo aqoonsanayo caadiyan waa qofka qaangaarka ah caruurtu qaxooti ma weydiistaan marka haddii ay dhacday arrintaas oo kale oo ah in cunugii la aqoonsaday ayadoon hooyadii la aqoonsanin waa wax aan dhicin oo ka soo horjeeda sida caadiga ah haddaad arrintaas oo kala hayso oo arrimo noocaas oo kale arrin ka mid ah aad hayso iigu imo xafiiskayga la talinta bulshada halkaas oo kale aniga wax ka qabanayay barnaamijkan u dhaxeeyay xisbiga SPD iyo waliba jaaliyada isdhexgalka bulshada iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee xaruntoodu ay tahay magaalada Darmstadt ayaa lagu gorfeynayay sidii bulshada Soomaalida ku noqon dalkan Jarmalka ayagu masiirkooda iyo mustaqbalka go'aan uga gaari lahaayeen isla markaana ay xaq u leeyihiin
inay codeeyaan oo doortaan cidda ay u baahan yihiin haddii ay noqon lahayd siyaasiyiinta ay ku qancaan manhajkooda siyaasadeed iyo haddii iyaga laftooduba ay u tababaraan lahaayeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen fahanka siyaasadeed ee dalkani Jarmalka. waxaa barnaamijkani igala qayb qaatay aadan ibraahim xaaji iyo weliba farsamada iyo kamaradii mustafa cabdibile aniga mustafa xaaji aadan haarun ayaa idinla soo socodsiinayay kulanti dambe fi amaan allah.